والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waa isku dhiban yihiin dad maata oo caruur iyo mataqaana haween laha meeshan lagu dilay laba meeydaha meesha taala cadaalad iyo dawladnimo iyo wax aan u haynana ma jiraan waxaan idin sheegayaa dawladda Soomaaliya inay dadkan inta bandow ku soo rogto hal saac guryaha la gelsho hadana guriyihii looga daba tago ee lagu laayo waxna qabta maahan dawladda Soomaaliya waxaan ka codsaynaa haddii ayna dadkan wax u qaba karin inayna guriyahooda ku layn waqtigooda waa iska gabagabo waxaan rabnaa dadkan hadda inay cadaalad helaan oy mataqaana sharaf ku noolaadaan haddii dadku sharaf ku noolaa waayaan dawladnimada waa nacayaan anaka dawladnimadana celiyo haysa wax haba yaraatee aan hadda aragno ilaa 24 saac meydkaanu meesha yaala wax dawladnimaha soo gaara ma jiraan wax cadaalad ah u helna ma jiraan waxa waaye gabar umulaha la dilay wadaad iska masaakiinaho masaajid mawlac yaro guriga ugu dhex yaala ku dukaaya lagu dhex dilay wax cadaalad oo ilaa waaga la soo gaaray iyo laamaha amniga amba madaxda gobolka amba madaxweynaha amba xafiiska ra'iisul wasaaraha ka socda oo soo gaarana ma jiraan saas darteed waxaan codsanaynaa in dadkaanu cadaalad helaan in meydka meeshan yaala dadkii dila la helo in cadaaladda la hor keeno in mataqaana dadkan maatada oo maala oona nugul hor dilaayo dawladdu ay naga xishooto 3 sano ay barayna soo dilaysay marka waxaan ka codsaynaa dawladdu inay hadda ka bacdi dadkaanayna sii dilin dadka hadda dilana ay cadaalad helaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh